بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن وناكسن أصحابتا قيمة يقايا لك كسودو هذا solarportal.com iyo solar live broadcasting maanta waxaan idin hayaa waraysi aad u xiiso badan oo aan ku ballansanayn waraysigaasoo aan ka qaadi doono shakhsi dadka Soomaalida ay aad u yaqaanaan oo maaragtay daryeelka ummadda isla markaana weriye ka soo shaqeeyay warbaahinta Soomaaliya waqti aad u dheer tabcan waxaan ku soo dhaweynaynaa Mr. Salman Jamal Said oo iminka ku sugan si toos ah magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga Jamal bal Salman soo dhawow waa dhawahay Zola aad u mahadsan tahay aad kaaga mahadcelinaya barnaamijkan qiimaha badan aad ugu martiqaaday iyo waliba hawsha kale kala gedisan aad bulshada Soomaaliyeed aad u hayso ما شاء الله waxaad ku sugan tahay wadanka walaalaha aan nahay saaxiibka aan nahay oo Soomaaliya runtii aad u gacan qabtay magaalada ganacsiga ee Istanbul ugu horeyn Soomaalinimo waa maxay Soomaalinimo bal noo sheeg waxay tahay aad u mahadsan tahay Zola sida la socono Soomaalinimo waa magac sida la socono ay wadaagaan bulsho iyo dal kadib ama xayndaabna ku leh marka laga hadlayo bulshadaasi isku xir dhanka sharciga dadnimada dawladnimada diin ahaan waxaan dhihi karnaa marka waa xayndaab ballaaran aan dhihi karnaa oo Soomaalinimo markaasi ka turjumayso qof walba Soomaali ahna oo ku aftirsado inkastoo sanadihii dambe Soomaalinimadu dadku qaar ay si qaldan u fahmeen waayadii hore marka laga hadlayo Soomaalinimadu waxa ay ahaan jirtay mid dhiiga ku jirtay ahaan jirtay oo laga gorgortami karin dalka diinta iyo waliba iyo qaybaha kala gedisan bulshada Soomaaliyeed doorka ama taariikh ahaan marka dib ugu laabano haliyadii wadanka u soo maray Soomaalinimadu waxay cadeysay inaysan dalka uu yahay dal Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed ay leeyihiin diintuna ay tahay diinta Islaamka oo waliba ay sunni ay tahay aysan waliba shiica aysan ahayn hal luqad oo luqad English ahayn Sawaaxili aan ahayn luqadda Soomaaliga waa Soomaalinimadaasi haliyadii hore laakiin waayadii dambe burburkii kadib Soomaalinimadu waxay isku bedeshay mid qabyaalada isku bedeshay qabiil isku bedeshay oo Soomaalinimadii laga tagay dalkii la gadanaya dadkii la gadanaya waxyaalo fara badan dhacay laakiin inkastoo ay jiraan jiil badan oo wax bartay aqoon-yahano oo soo koray oo Soomaalinimada wali ay ku jirto ayaa waxaan dhihi karnaa way ka go'an tahay mabda'a Soomaalinimada waan Soomaalinimada ku aragtaa in la gaadhiyo aswaa waa mahadsan tahay waxaan rabaa barnaamijka dad badan ayaana daawanaya waxaan idinka codsanaynaa inaad sii qaybisaan ama share garaysaan isla markaana title-ka aadan ka bedelin title-ka uu ahaado isla kaas uu ahaado waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wadanka Turkiga ay ku sugan tahay Turki runtii Soomaaliya oo dhulka taala oo aan soo kici karin ayuu gacanta qabtay waxa dawladda Turkiga dadka Turkiga ay u sameeyeen Soomaaliya wadan kale oo adduunka ku yaalo haday ahaan lahaayeen wadamada Carabta ama Afrika ama kuwa kale ma jirto insha Allah socotid laba maalmood ka hor waxa laga furay xarunta ugu weyn Afrika oo ciidamada Turkiga ay ku tababari doonaan insha Allah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma isdhihi karnaa isbedel weyn ayaa ku dhacaya sidii difaaca wadanka iminka loo adkeyn lahaa oo xeradan weyn ee loo dhisay ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay wax ka bedeli doonto wadankeena ciidamada Shiina mustaqbalka la dhihi doono waa mahadsantihiin nabaday aad u mahadsan tahay base-kaasi ciidan waa marka ugu horeysa waa base-ka kaliya ay dawladda Turkiga ay ku leedahay meel ka baxsan wadankeeda oo base-ka ugu weyn ay Turkidu ay ku leeyihiin meel ka baxsan wadankooda Muqdisho ka hirgeliyeen shalay marka xariga laga jaray qaybaha kala gedisan warbaahinada caalamkana siyaabo kala gedisan ay uga hadlayeen in wax badan ay ku soo kordhin doonto ciidamada Soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed sida la socoto Soomaaliya inay cagaheeda ay dib isugu taagto waxa ka hortaagan in la dhiso ciidamo qaran ayaa la dhisay in la dhisaa ka hortaagan ciidamo fara badan joogo oo wadanka Amisom joogo saas ay tahayna doorkii laga rabay wali ma aysan ka soo bixin marka base-kan wuxuu saamaxayaa ama u saamaxayaa dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaya in ciidamada ay ku biiraan oo markii hore tababar u imaan jiray wadanka Turkiga
in hadda wixii ka dambeeya ay tababarkooda ay ku qaataan gudaha magaalada muqdisho bayskaasi laga hirgeliyey inay ku qaadan doonaan qalab kala gedisana la geeyey hub kala gedisana markaa ka hadlayso taangiyadii oo kale oo tababarka ay ku qaadan doonaan tiknolojiyadda casriga ee caalamka xilligan laga isticmaalo ayay tababar ku qaadan doonaan marka wax badan ayay ka tari doontaa waxayna fursad ay u saamaxaysaa ardayda jaamacadaha ka soo baxaya inay ciidamada ay ku biiraan waana wax weyn ayaan dhihi karnaa oo wax ka bedeli doona habka qaab dhismeedka ciidanka Soomaaliyeed waxaan doonaa mustaqbalka dhow inay ciidamo fara badan ay ka soo baxaan sidaas shalay sawirada aad ku arkaysay oo dhalinyaro fara badan ay goobta iga joogeen إن شاء الله waxaan u sheegayaa asxaabta sida tooska noo daawanaysa inaan ka hadlayno horumarka qaranka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo waxyaabaha positive-ka ah ee la doonayo dhalinyarada Soomaaliyeed in loo sheego sababtoo ah wadankeena ayaamahan waxa ku batay wax walba negative inay yihiin oo dhanka xun laga marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka jecel wadaniinta ay ku dambayso Soomaalimada ay ku dambayso in loo sheego wax qabadka Ra'iisul Wasaare Khayre markii la soo doortay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo runtii aqoon sida aan lagu aqoon Soomaaliya inta badan waxa lagu yaqaanay dadka maaragtay la yaqaano oo magaca leh oo rugcada siyaasi inay soo galaan laakiin isbedelkii siyaasadeed iyo waxqabadkii wadanka ku sameeyay runtii dhalinyarada aad ay ula reeqeen wuxuu noqday qofka kaliya oo maanta la dhihi karo Soomaali isbedel weyn ayuu keenay bal waxa nooga sheegtaa maxaabiistii uu xooga saaray oo dawladda Itoobiya intuu u tagay uu ka soo kaxeeyay wadanka uu ku soo celiyay bar arintaas runtii aad ii taabatay waxa nooga sheeg arrintaasi waxay ahayd arrin aad u weyn oo waad arkaysay hooyooyin fara badan oo hooyooyin Soomaaliyeed oo ilmeynaya oo runtii caruurtooda aysan la kulmin muddo sanado ah ku dhawaad 20 sano dad la xiray oo laga kala qabtay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya hadday noqon lahayd Hargeysa hadday noqon lahayd Puntland hadday noqon lahayd Galmudug Jubbaland Baydhabo oo dadka dhalinyarada faraha badan halkaas laga wada qabtay isla markaana aan ognahay in maamulay halkaas ay ka jiraan ay maamuladaas dhowr iyo 10 sano marar badan ay booqdeen ay tageen Itoobiya ay tageen jigjiga la ciyaarsiiyay la dhaanteysiyay aysan u suuro gelin xitaa inay dhalinyaradaas ay marnaba ay ka hadlaan ra'iisul wasaaraha waxa xusid mudan 2 jeer oo kaliya ayuu tagay Addis Ababa markii koowaad oo ka qayb galay shir iyo markii labaad uu tagay marka saddexaadna waxa uu ku guuleystay in dhalinyaradaas 170 ka gaaraya inuu soo daayo ayuu ku guuleystay ayadoo xitaa warar hoose markaasi booqashadiis aynu helayno ay sheegayaan in madax kala gedisan oo deegaanka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed deegaan dadka madaxda oo ay waliba wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay ra'iisul wasaaruhu ay ku qalqaalisay inuu jigjiga tago oo soo booqdo maxaabiista halkaas oo ahayd yani la doonayay siriq ama in loo dhigo si shacabka Soomaaliyeed waxa la og yahay damiirkooda inuu wali nool yahay aysan ka gorgortami karin jigjigo inuu yahay dhul Itoobiya ama dhul Soomaaliyeed inuu yahay oo ra'iisul wasaaraha uu u diray safiirka Soomaaliya ee Addis Ababa fadhiya waad ogeyd dhalinyaradaas markii la soo dejiyayna waxa meesha ka dhacay hooyooyin fara badan ay ilmeeyay caruur fara badan ay ilmeysay oo waalidkood aan arkay dad ku qaangaaray ayagoo 15 jir ayaa la kaxeeyay ayagoo dhowr iyo 20 jir ilaa 30 jir ayaa dib loogu soo celiyay hay'ad fiican ay ahayd oo shacabka Soomaaliyeed ay weligooda aysan arkin 25 sano kadib in ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo danta shacabka uu markaasi uu ka turjumayo oo dadkii uu soo saaray shiishadas wuxuu kula kulmay wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda waddankaas shiishadas ayuu la kulmay arrimaha dhalinyarada maxaabiista ku jirta uu kala hadlay India waa la socotay wasiirka arrimaha dibadda tagay meel fiican ay wax marayaan rajo fiican aad jirto insha Allah waanu imaanayaa Salman taasna waa soo socota waanu imaanayaa runtii waxqabadka isbedelka dhismaha wax walba kullay ma dhihi karno haddii si xaq aan u hadalno oo aan niraahno wax walba oo la sameeyay wadanka 8 Febraayo ka bilowdeen xogaa waxay noqonaysaa xaq ma noqonayso dawladdii hore tabcan dawladdii ka soo horeysay wax qabatay laakiin waxyaabaha wadankii anoo 30 sano ka maqan Salman waxyaalaha aadka aan ugu farxay oo qiirgelay waxay ahayd madaarka ama airportka magaalada Muqdisho anoo ka dhoofi raba oo Muqdisho Hargeysa u socda ayaa diyaaradii iga tagtay diyaaradii Juba Airways ayaa iga tagtay marka inta badan saa la socotay ani qof aad u safraanahay adduunka meel walba u safraa marka haddii diyaarad ay ka tagto lagama yaabo diyaaradana hore ka heshay isla markii waxa la yiri halkee u socota Hargeysa diyaaradii baa iga tagtay waxaan filay in la yiraahdo
berri ama soo damba soo laabo laakiin waxaa la yidhi telefoonkaaga keen telefoonkaa laga qaaday $120 waxaa lagu gooyey flight 20 daqiiqo kadib baxay waxaa kaloo dhagahayga ku dhacay oo aan aad ugu farxay in dhawaaqa airportka ka dhex yeeray dadka loogu yeero aan ka maqlay flight cadaado gaalkacyo is closing 20 minutes left flight Kismaayo isbedelkaas xooggal ee dhacay bal wax nooga sheeg dhanka airportka aad u mahadsantahay sidaad ka dhawaajisay isbedelka 8 Febraayo dowladda madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre oo kaliya soo bilaabanad arrintan airportka aad ka hadlayso oo kale dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saldhigeeda lahaa oo in garoon noocaas oo kale magaalada Muqdisho laga hirgeliyo xilligiisa timid wax badan ayaa garoonka laga bedelay oo xitaa arrintan ku saabsan in diyaaradaha aysan wajeer aysan marin wax horey loo dhigo ahaa waxaan la soconaa dadku inay kala gartaan dowlad walba waddankan soo martay meel ay wax gaarsiisay dowladdii Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxay dowladdu ay keentay in magaalada Muqdisho madaxtooyo inay ka shaqeyso ay keentay midii Sheekh Shariif waa la soconaa magaalada Muqdisho inteedii kale shabaabkii haystay way ka sifreeyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siyaasadda arrimaha dibadda ayuu wax weyn ka qabtay inkastoo amnigu aad u liitay dowladana qorshooyin cusub ayaa la timid marka waxaan la soconaa garoonka iyo duulimaadyadaasi iyo isku xirkaasi in wax badan ay tartay sida hadda ka dhawaajisay arrinta hadda kugu dhacdo oo kale markii hore waxay qaadan jirtay in lagu yiraahdo ticket cusub samayso ma suuragelayso waxaan ma hagaagayaan laakiin in minutes daqiiqado gudahooda ayaa wax walba loo sameeyay marka isbedelka waddanka ka dhacaya iyo garoonka waad ogtahay waxyaalaha isbedelada ka muuqda inuu caalamka la tartamayo inkastoo garoonka uu magaalada soo galay oo haddana qorshooyin kale ay socdaan magaalada Muqdisho banaankeeda garoon cusub in laga hirgeliyo ay socoto haddana waxaan ognahay in garoonkan uu isbedel weyn uu sameeyey oo wax badan uu qabtay oo shacabka Soomaaliyeed arkeen marka falaadiyadii caalamka ka shaqeynaya diyaaradii Turkish Airways shaqeynaysa hargeysa sida la socoto diyaaradda Fly Emirates dowladda Xasan Sheekh Maxamuud saxiixday goobjoogan ahayn wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Imaaraadka Carabta inuu xalana tagay oo yimid heshiis halkaas lagu kala saxiixday iyo waliba qorshooyin fara badan socda marka Puntland oo kale marka ka hadlayso garoon caalami laga hirgeliyay oo boosaaso oo garoonka laga hirgeliyay oo madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Gaas ay xariga ay ka jireen marka rajada waddanka 25 sano sidii ahaan jirtay hadda maaha aniga waxaan xasuustaa garoonka Aadan Cabdulle Cismaan anoo galabkii subaxii iskuul ka soo baxay ayaa galabkii waxaan ku ciyaari jirnay kubadan ku dheeli jirnay haatan aan joognana waa la soconaa sidoo yahay isbedel weyn aa jiro shacabka Soomaalida soo noqonaya wax badan ay jiro marka iyo diilada iyo nabadda iyo isbedelka Soomaaliya maalinta ka dambeysana meel wanaagsan ayuu sii gaarayaa ما شاء الله سلمان waxaan ognahay dadkiinan ku koray wadanka oo runtii dhalinyaradiina waxa la dhihi karaa nabad inta badan ma soo arkin annaga xogaa waa idinka fursad fiicneen waxaan soo aragnay dawlad jirta حتى dhalinyarada markaan u sheego samaafara ama traffic light wadanka jiray ima rumaysanayaan iyo waxa imaan jirtay Itaaliya iyo diyaarada caalami ah imaan jireen wadanka ganacsiyo aad u fara badan ayaa nabadii la timid oo Muqdisho waxay noqotay center waxay noqotay oo ganacsi oo nabadiina ay keentay taas ganacsiyadaas iyo dukaamada shirkadahaas ajnabiga ee wadanka laga furay bal waxay nooga sheeg ka hadlayno ganacsiga markaan ka hadlayno tusaale yar ku siinaya waayadii hore wadanka waxa imaan jiray rag dhalinyaro iyo waliba hooyooyin ama gabdho qurba joog ah ay hoteelada buuxin jiray ayagoo xilal raba laakiin haatan markaad magaalada Muqdisho aad tagto waad aragtay dadkii wadanka gudihiisa wax ku bartay ganacsiga ku dhiiranayaan hooyooyin fara badan oo qurba joog ah wadanka ay maalgeliyeen ganacsi fara badan ka socdo isbedelo fara badan ay sameeyeen ganacsiga magaalada Muqdisho wuxuu ahaan jiray in habeenkii 2 saac uu xirmo ayuu ahaan jiray laakiin haatan ilaa iyo 12 habeenimo ilaa ay kooda la gaaraya oo ganacsigu u socdo ganacsiga Turkiga iyo hadda marka ka hadlayno Soomaaliya ganacsato fara badan ayaa joogta wadanka Turkiga oo Soomaaliya oo wadanka wax gelinaya oo cargo fara badan sameeyay dhalinyaro fara badan ayaa jooga wadanka Turkiga oo ganacsi ku jira xafiisyo fara badan oo cargo waa jiro oo ilaa Mareykanka ilaa Muqdisho ilaa Hargeysa ilaa Garow ilaa Jigjiga dhulka Soomaaliyeed oo dhan wax gelinaya marka ganacsiga waa kobcay dhalinyaradii markii hore dawladda ku hami jirtay inay ka baqaan oo ay dawladdu ay ku biiraan maanta dawladdii galayaan kii ganacsiga jirina ganacsigu ku dhiiranaya
isbeddelka xawli ku socdaa waxyaalaha dhanka labiskaad ka dareemaysaa sawirada markaad aragto magaalada muqdisho dhalinyarada qaabkii u labisanayaan aad ka dareemaysaa in dharkii ugu dambeeyey kabihii ugu dambeeyey wax walba oo wixii ugu dambeeyey in magaalada muqdisho ay dhalinyarada ay xirinayaan laakiin waagii hore ma jirin xabadaa dhici jirtay rasaasaa dhici jirtay maqribka waa la kala hooyan jiray socod ma jirin magaalada mugdi ahaan jirtay laakiin haatan wax badanaa jiro anoo taa ka duulaya marka ganacsiga waa isbedelay hooyooyinkii aad baan u amaanayna hooyooyinka soomaaliyeed ee qurbaha oo ganacsiga ku dhiiraday oo goobo ganacsi furay waxyaalo badana sameeyey marka ganacsigu zola aad ayuu isku bedelay salmaano waxaan rabaa waxyaalo runtii dadka inta badan aanan maqlin oo aan xiisana u yeelin laakiin aad muhiim uga ah waddanka sida hawada Soomaaliya iyo air traffic controlkii oo la soo celiyay iyo isla markaa in la furay iskuul dugsi lagu barto saadaasha hawada iyo air traffic controlka arrintaas wax nooga sheeg dugsiga mar dhawaan la hirgeliyey sidaad ogeyd dowladda Turkiga gacan ka geysatay in dhalinyaro oo hawada ku takhasustay wax ay ku bartaan ayaa laga hirgeliyey gudaha magaalada Muqdisho isla markii isqoristii way socotaa oo way bilaabatay dhalinyaro fara badan isqoraysa inay hawada Soomaaliyeed ay maamulaan waa 25 sano kadib in hawada Soomaaliya dib loogu soo celiyo magaalada Muqdisho sida arkaysay Canada ay ku kala saxiixdeen wasiirka arrimaha wasaaradda arrimaha hawada Soomaaliya iyo waliba hay'adda gacanta ku haysa arrimaha hawada Soomaaliya ECO waa la yiraahdo oo basekeedu waa magaalada Nairobi laakiin waa ka soo wareegay markuu ka soo wareegay maxaa bilaabmay waxaa bilaabatay in diyaaradaha ay habeenkii garoonka Muqdisho ay ka soo degi karaan waa waxyaalaha aan helnay ka mid tahay isbeddelka aan helnay laakiin markii hore oo ay hawada dhaqaalaha ka soo gala qarashaadka ka soo gala NGOs kala qaadan jiray oo dawladda Kenya iyo hay'ado kale lacagta kala qaadan jiray laakiin haatan marka maamulka uu gacanta ku soo dhacay oo magaalada Muqdisho laga hirgeliyay dawladdii hore wasiirkii hore Jankeli iyo waliba wasiirka haatan joogo oo dadaal fara badan ay u galeen oo waxyaalaha lagu amaanay dawladdan waxaa ka mid ah dawladdii hore oo meesha ka baxday wax walba meeshay marayeen ay kasii bilowday wax walba meeshay marayeen ay kasii bilowday dhanka hawada oo kale markaan ka hadlayn dawladdii hore bilowday ayaga way sii bilaabeen way sii dhamaystireen iyo dilo fiican marka hawadii Soomaaliya in dib ay ugu soo noqdo diyaaradda magaalada Muqdisho ma sha Allah beekii soo galaysa lala socdo ama hawada Soomaaliya marka soo gasho lala socdo waa wax aad u wanaagsan laakiin dad fara badan ayaa jira oo waxan u muuqan oo muuqdo oo kaliya meel kale oo inay wax ka laakiin waa horumar wanaagsan okay waxyaabaha kale ugu muhiimsan ee golaha wasiirada iyo xafiiska wasiirka koowaad Soomaaliya waxa lagu yiraahdaa prime minister wasiirka koowaad dabcan waxa kamid ah isla markaana uu shaqo weyn ka geystay engineer Yariso oo dhanka warfaafinta ah in la soo saaray sharciyo maartay doorka ay ka qaadan karto maaragtay salahan warbaahinta iyo sharciyo cusub oo runtii inta la tashtay warbaahinta wariyaasha soo saarayaasha qof walba la tashtay in la bedelay waxyaabo badan arrintaasay saameyn u yeelan kartaa warfaafinta iyo dawladda waqtigan maxay u timaadaa isla qayre iyo engineer Yariso wallahi arrinta warfaafinta markaan ka hadlayno wariyaasha Soomaaliyeed horta waddanka ku sugan marxalad adag ay ku shaqeynayaan dhibaatooyin fara badan ay ku shaqeynayaan ayagoo ujeedku ay u shaqeynayaan ay tahay in warar iyo waliba wax jiro ay u soo gudbiyaan ummadda Soomaaliyeed ee adduunka ku dhaqan ayagoo dilal la kulma abajugleen la kulma waxaa jirtaba qaarkood inaysan habeenkii baseexan oo telefoon loo soo dirayo oo loo abajugleeyo saxaafadda Soomaaliyeed waxaan dhihi karaa waa kuwa u dhabar adeegay marxaladda waddankoodii ka jirta ay ku shaqeynaya gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ku dhaqan aad baan ugu amaanayaa hawsha ay qaranka hawsha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed arrintan ku saabsan xeerka saxaafadda waxaa wanaagsan in wax badan saxaafadda lala tashto ma qabo in lala tashto ragga madaxda ka ah idaacadaha ama ha noqdaan TV-yo ha noqdaan idaacado madax ha noqdaan ama agaasimayaal in lala tashto ma qabo aniga ka shakhsi ahaan waxaan qabaa ragga shaqeynaya oo shaqaalaha wardoonka ah kaamirada qaadanaya magaalada aada wararka soo raadinaya in la weydiiyo la yiraahdo maxaad laga bedeli karaa maxaa la weydiin karaa laakiin idaacadaha madaxdooda agaasimayaasha waa la laaluushi karaa waxyaalay qaadan karaan waxaa la hoosgelin karaa dhibta ayaga kuma dhacayso hadhowdii dhibaatada waxay ku dhacaysaa qofka wariyaha shaqeynaya ee aan ilaalada haysan ayuu dhibka ku dhacaya waxaan la socon agaasimayaasha ilaalada haystaan gawaariya ku socdaan laakiin ninka wariyaha ah waxaa laga yaabaa inuusan gaari haysan oo dhibaato ay haysato marka aan ka gudubno meesha aan kala tashan lahayn madaxda ama agaasimayaasha idaacadaha aan u gudubno in ragga shaqeynaya oo wararka keenaya ee waraysyada raadinaya ee magaalada maraya oo riskiga ku shaqeynaya in ayaga xeerka wax laga weydiiyo
midda kale aan codsanayo waxay tahay fursadda ka faa'iideysanay arrintan su'aashan fadlan wariyaasha Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ka shaqeynaya agaasimayaasha waxaan ka codsanaynaa in tababarada ayaga loo soo diro tababarada wariyaasha shaqeynaya ee dhibaatada ku jira in ayaga loo soo diro waxaad arkaysaa agaasimayaal tababar u imaanaya wadamada kala gedisan qaarad waxa imaanaya Kenya imaanaya qaarna wadamada horumaray tagay oo tababar soo qaadanaya waa laga fiican yahay waxa wanaagsan in saxaafadda la hormariyo kow waxa muhiim ah ninka shaqeynaya in la diro gabadha shaqeynaysa in la diro wiilka shaqeynaya in la diro agaasimuhu waa in uu siyaasadda guud ee warbaahinta ula socdo laakiin asagu ma inuu tababarka u aado ma aha marka in uu helo qofka shaqeynaya kaamirada wata wariyaha dhibka ku shaqeynaya caruur biilaya laga fikiraya dhibaato ku jira waa kaasaa la rabaa in tababarka uu soo aado marka agaasimuhu in fursad la siiyo wariyaasha shaqeynaya هذا يا ضمع سنتهاي نن ماركتي أبوانا وحو يري واقي هالك عن لسكو سلامي جري ولا جسوا جود بين أرمها الدبدة هدي الله أجر رئيس الوزراء هي مدحوينها والضم بدنا إيه تجين كنتي والضم أن له كرو والضم ده مهم سن الدون هدو مهم سن أو السعودي كوجرو والضم كمراكن كوجرو لكن وحن أرقنا أيامها ندمبه إن الشيء كذي يسبد الشيء سيدو مدحوين فرماجة غير هيجي معدين أو يسبد الشيء in si ka duwan sidii dadkii hore loo soo dhaweyn jiray sida loo maamuso wax qabadkoodii arrimaha dibadda isbedel weyn ku dhacay marka Soomaali kulay hadda saan ognahay wali batrool lagama helin Soomaali ma noqon wadan 100 milyan dad leh oo ciidamo xoog leh maxaa isbedel leedahay oo xogaa Sacuudigan aragnay Ethiopia aragnay Kenya aragnay Mareykanka Yurub aragnay maxaa isbedelay oo Soomaali iminka saan lagu xishmeynaya oo karaamadeeda kor loo qaadaya Soomaaliya marka ugu horeysa zona waxa la soconaa meesha ay ku taal inay tahay meel muhiim ah inay ku taal meel muhiim ah inay ku taal madaxdii hore go'aankooda waa jilicsanaa laakiin maanta la joogo madaxda qaar ama madaxda maanta joogto shacabka waxa ay rabaan ay arkeen farmaajo marka la doortay isbedelada dhacay ama shacabkaas diilada ay muujiyeen waan aragnay Soomaali maanta adduunka oo dhan u baahan إماراتكيا وباهن سعودية وباهن تركيا ملك جرا أمريكانكي إنجليزكي كياتي مال والبصمال اللي قدونية مهمة وحواي الشدال كذا ولي أنا قادي تركيا الله سعته ولي شدال لو مقدي شدال كذا لما قادي بقول سنة أو عنقبتينا أي الله صار تركيا أي لقى شيء إنسان شدال قدن كرين إنسان قيران لسوق بحين كرين إنسان نيوكلير سميسن كرين إنه بدأ إنسان عشور مراكب بدأ تركيا مرة واحد عشور على جماعة قالوا شيء سلقلي لكن وحول دمانة يا مردو أيو دمانة يا مركز سوماليا ماش أي كوفا لسه أي مهمة هدي أي مدحضة هدي جوان كود أي كذا بيان جوان وحكوا أولا ونقضه واحد بدنا يسبدلي كره وحيانا يسبدلي كره واحد كم إذا سيد هذا لصعود السعودي وأكله أريدان ودمنا الخليج كديبات هذا كله على أكله أو سعودي وسومالي جوان كذا على طوال صعنا وأمريكا جوهري الصومال أي ترى أنا دحابة كنا إلى لبض وطن أو صاحبة أو بريه الشينكرة هذا مثل أي لصفة إباتها جيري كرتا مركا وحنا كم وقت قاب كمدحوين فرماجة لو جسوا دوي مقالة دلك السعودية العربية لبض مر يتجي لبض مر مديارنا خاصة الله صدري هب ماموس كلو جسوا دوي وان رجني مركا وحكينا إذا صومالي خيرات كوفانيدو ماش أي هيستو iyo waliba mustaqbalka soo socda Soomaaliya waxa ay noqon doonto wala siisa shidaalka hadii la qoro Soomaaliya waxay noqon doontaa dal barwaaqo ah oo isku filan oo aan waxba u baahnayn beeraley ah kaluumaysata xeebta ugu dheer Afrika haysana waxyaalo fara badan haysana marka dagaal ka socda laakiin anaga waxna laga rabaa inaan garano sida aan dadkaasi ama dalalkan shisheeyaha ee doonaya maanta inay danaga yeeshaan inaan qaabkan aan isaga dhicin lahayn iyo waliba inaan danahayna maslaxadeena laga fiiriyo maslaxada Soomaaliyeed ee laga fiiriyo marka waxaan oo dhan hore u socdaan waxaan dhibaatada keenaysa waxay tahay in Soomaaliya la soo hunguriyo meesha ay ku fadhiso base ay ku taalo iyo shacabka Soomaaliyeed oo ah shacab runtii aad isku jecel inkastoo la soo kala dhex galay oo barnaamijyo fara badan oo qabyaalad iyo quran iyo waxyaalo kale lagu abuuray waxaad arkaysaa nin siyaasi oo ajnabi ah oo qabiilada Soomaaliya kala garanaya marka danta laga leeyahay Soomaaliya way aad u fogtaa marka waxaan rajaynaynaa madaxda Soomaaliyeed go'aanada wax ku oolka ah oo ka turjumaya danta shacabka iyo danta dalka iyo diinta ka turjumaya inay mar walba ay qaataan ما شاء الله مدحوينه فرماجو warbaahinta ingiriiska lagu qoro waxay ku tilmaameen inuu yahay nationalist inuu yahay ama qof wadani inuu yahay
marka laakiin dhibka ugu horeeya oo hadda madaxweynaha lagu hayo waxay tahay in haddii maanta reer biyo ay ka go'aan ama koronto ay ka go'do gaalkacyo ama kismaayo kubadda aan lagu ciyaarin in la yiraahdo madaxweyne farmaajo ayaa ka mas'uul marka madaxweyne farmaajo kulley waa bani aadan adi anoo kale 24 sac kaliya uu haystaa maalintii marka madaxweynahana shaqooyin aad u fara badan ayuu qabtay meelahu tagay waddanka marka maxaa loo baahin waayey in madaxweynaha shaqo weyn uu qabto laakiin mar walba dadka ay u raadiyaan cadowga Soomaali ah ee kan gudaha jooga iyo kan banaanka jooga ilaan kan banaanka jooga waaba taqaanay waa cadowgaagi laakiin kuwa gudaha jooga aad Soomaalida isla tihiin oo madaxweynaha ka soo horjeeda waa ka soo horjeedi karaan tabcan dhibaato male laakiin isla markiiba isu bedel inay gabi ahaan Soomaali ka soo horjeedaan oo ay rabaan dawladdan inay dhacdo marka ma dawladdan Soomaali dadka cadowgu ah haday ay u suurtooday u dhacdo ma dawladdan ka fiican ayaa soo maray mustaqbalkooda Salmaano cadowgu horta Zola wuxuu ka soo galayaa mar walba si toos ah kuma soo weerarayo waxa la socotaa social media aan isticmaalayna cadowga uu nala isticmaalaya waxa laga yaabaa maanta wararka soo dhigayso in la qaado la turjumo oo loo gudbiyo oo xog laga la baxo qoraala la soo dhigaya dad soo dhiga waxyaalo waa la turjumaya cadowga si toos ah oo brera kugu imaanaya laakiin wuxuu ku soo adeegsanaya shakhsiyaad Soomaaliyeed ku soo adeegsanaya habeenkii maalinta doorashada ay dhacday hoolka waxa ka dhacay waad ogeyd siyaasiyiin fara badan oo ama rag fara badan oo ajnabi ah oo wadamada jaarka goobjoog ka ahaa niyadjabka iyo wajigabaxa ay meesha kala kulmeen dadka Soomaaliyeed oo dhan waa loo jeeday marka cadowga meel walba ka soo galaya hadee noqon lahayd waxa lagu keenayaa barnaamijyo kala gedisan lagu keenayo oo dawladda lagu curyaaminayo waxa ka sii darneed habeenkii la doortay madaxweynuhu in Muqdisho Garowe meel walba Soomaaliyeed ilaa iyo adduunka dibadbax weyn oo ka dhacay oo dawladda lagu soo dhaweynayo ayadoo taasi laga shidaal qaadanayo waxa mar walba la isku dayaa marka dawladdan oo shacabka Soomaaliyeed ay u riyaaqeen oo wada wanaagsan ay adil la isgarab qabto wada wanaagsan ay ku hogaamin karto in laga hor keeno shacabka waxyaalo badan la adeegsanaya marka waxyaalo badan oo dawladda lagaga hor keenayo ayaa la adeegsanaya marka shacabka Soomaaliyeed waxa mar walba haboon in dawladdu ma aha madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka ragga madaxda ah dawladdu ma aha dawladdu lagu sheegay waa shacabka Soomaaliyeed Turkiga habeenkii afgambiga dawladda la afgambirabay madaxweyne Erdogan wala afgambirabay yaa badbaadiyay yaa kacay yaa dawladda diiday Turkiga meel fara badan isaga egnahay Turkiga waxa dhibaato ku hayo wadamada jaarka ah oo Europeanka ah iyo Mareykanka Soomaaliya dhibaato waxa ku hayo wadamada jaarka ah dhibaato ku haysa marka shacabka Soomaaliyeed waxa la rabaa in ay ogaadaan dawladda la sheegayo inay tahay shacab inay tahay in dawladda la garab istaago qaladaad uu dhacaya dawladda qalad way galaysaa bini aadam ma aha qaladka ay gasho waxa haboon in qalad aan qalad lagu sixin dawladda qaladkeeda loo sheego taasi waa muhiim laakiin in mar walba la ogaado qaladaadka ama isbedelka waddanka dawladdu ay sameynayso waddanka horumarka ay sameynayso inuu aad u laba jibaarmay saaka oo kaliya maxaa dhacay daraad xamarweyne waxa lagu dilay gabar ama hooyo Soomaaliyeed oo xogayaha ururka haweenka ahayd iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Axmed Gaballe wiil ay walaalo ahayd saaka iyo wasiirka amniga qaranka muxuu sameeyay talihii nabad sugidda iyo kii booliska xamarweyne oo meesha falka ka dhacay iyo isgoyskaas ciidamadii jooga oo 10 gaaraya kulli labada tali waxa laga dhigay xilka waa laga qaad xabsi la dhigay baarisa ku socota 10 askarna waxa ku socota baarisa ku socota isbedela jiro markii hore ma jiri jirin dilaa dhacay wala kale waxa la jiray lama hayo magaalada Muqdisho oo weyn tahay askartu facility loo baahnaa ma haystaan wadamada horumar dhibaatooyin ay ka dhacaan marka askarteenu way dadaalayaan laakiin qalabkii ma haystaan waxyaalo fara badan ma haystaan marka qaladaad uu dhacaya dawladda qaladaad way galaysaa dilal uu dhacaya wax uu dhacaya laakiin waxa loo baahan yahay waxaas oo dhan inaan cashir ka barano shacabka Soomaaliyeed oo danta Soomaaliyeed okay Salmaano arin su'aal muhiim ah runtii maanta anagoo saaxiibo ah oo colleague ah waqti badan isla soo shaqeynay ka sokow waxa maanta isu kan keenay waa Soomaalinimo laakiin arin aan meesha ka maqnayna jirta oo ah in ereygan qabiilka la yiraahdo mar badan aan ka hadalna maanta waxa laga yaabaa saadi hor u sheegtay ani adiga live aan soo galnay waxaan ka hadalnay dawladda Soomaaliyeed isbedelkii iyo wax qabadka ay sameynayso laakiin qof ayaan ku fikiraynin Salmaan iyo Cabdi Naasir waxay u sameynayaan Soomaaliyeed waxa lagu leeyahay
ما مدحوينه قرابيهن طبعا أنا أديك مدحوينه قرابة منهن رئيس وزراء قرابة منهن قدوميها برلمان قرابة منهن كان أقل كسر قرابة منهن لكن سومالي لماذا دتكي محيو أركي وايين دت سومالي أو جعيلكي ودن كودا دتك أسو بندقة أو تصة أو يرهده وروح عن سومالي ما يقطعي أدنى حلم الدوني أنا وأنا صغير حلم بالدوني يبي لكن سومالي ماذي أو مارتي للدوني هكي كل أنت سلمان aad u mahadsan tahay dada waxay ku leeyihiin Salmaan ama Zola ama dadka la midka ah dawladda lacag siiso ani ra'iisul wasaare qeyr isma naqan farmaajo isma naqan halkan aan ku arkay Turkiga oo kaliya mar aan wareys oo aan tabinayo wararkiisa dawladdii ka horeysay Xasan Sheekh Maxamuud isbedelada magaalada Muqdisho oo goob joog aan ka hadlayay isbedelka magaalada ku jiro dawladdu waxyaalaha ay qabataan ka hadlayay ما أها إن مدحوين حسن وولي أنتوا حمر جوجل ما كلمين لكن مركو تركي يمد ودور جرى على كلمين مرة لقى أنا ورر هذين أنا كلمين لكن سيجار ولا ما كلمين لكن مدحوين حسن شيخ رئيس وزراء غير إيه مدحوين فرماجو وحكمه يمسن ضلك كم يمسن ضلك أي كم يمسن قفك وإنه قرتها ضلك إن لجوسو دولي أو لدونيو إن لما إن دول كلارديو أو سوماليا أي محمية يجلسوا لدونيو على كسوماليا لو ببنا إن هاس لارديو ضد دوني يجرو أو سوماليا أو عدو جنوب شقينيا أو العكو قاعد تجرو لكن مدحوينه هو شخص وتجي رئيس وزراء هو شخص وتجي لكن ضلك ما تجي ضلك ما تجيو وتجنانيا وماشى كل لنا كورني كوسوبر بارني وبقعد كلية وماشى كلية الدون كلنا ما أنت زولا أديك واحد هيستا باسبور بريتيشة waxaa laga yaabaa beri ka maalin marka ugu dambaysa wadankaaga inaad ku laabato habeenkii markaas ay xanayso waxaa suuragal ah inaadan ka fikirin Britain wax ka dhacayo balse aad ka fikirayso wadankaaga Soomaaliya dhibaatada ka dhacaysa inaad ka fikirayso laga yaabaa aadiyaad laakiin dadku waxa ku qufilan oo kaliya hebel lacag la siiyay ayadoo jirin wax lacag ah la siiyay rag waxa jiro oo dawladdii hore caynayay Abdullah Yusuf Allah u naxariistay caynayay madaxweyne Sheekh Shariif caynayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud caynayay madaxweyne Farmaajo caynayay xagee u socdaan maxay si doonayaan marka dadka noocaas oo kala waxay rabaan waa dadka ayaga lacagta la siiyo waxaan la soconaa anigu shakhsiyan 5 bil ka hor social media wali la soo xiriiray raga ila soo xiriiray nin oo hay joog ila soo xiriiray ma doonay magaciisa inaan sheego lacag uu balan qaaday raga uu sheegay raga la mid noqo qaado maxaad ku helaysaa dawladda maxaad ka helaysaa 4 saacadood ka hadashaa waa nin Soomaali ku hadla laakiin aniga waxaan aaminay ninkaas inuu Soomaali ahayn uu yahay nin kale oo dhalasho kala haysta ama ha noqdo wadamada jaarka ha noqdo Ethiopia ha noqdo Kenya ha noqdo Soomaaliga bartay laakiin rabo inuu aniga iibsado laakiin waxaan u sheegay wax walba inay ka muhiimsan tahay wadankayga inuu ii hagaago inay ka muhiimsan tahay marka dadka qaar waxaan dhihi karnaa si khaldan ay u fikirayaan wadanka shakhsiyaadka iskooda wadankooda u shaqeynaya anaga afan ugu shaqeynaynaa laakiin waxaa jiro rag dhiigooda u horeeyo dhimanayo hooyooyinkooda habeenii maalin ooynaya xaasiskooda asay saaranaya caruurtooda aan waxba haysan ragga noocaas oo kale anagana la mid ah ee dhalinyarada ah ee askarta ah ee Soomaaliyeed oo wixii la rabay aan helin oo ayaga rag la mid ah oo shisheeye ah bishiina ay qaadanayaan $1,300 xawaaladaha loo dhigayo oo Uganda laga qaadanayo dahabshiil Uganda dadku arkaysaa Uganda isku dahabshiil buuxad arkaysaa oo xagga ka qaadanaya waa mushaaraadka ciidamadu la keenana waa dhibaataysay ninkaas marka anaga noo muhiimsan marka afkeena oo iqraalka waa ku difaacina wixii wanaaga wadankeena uu naga mudan yahay laakiin dadka maangaabka ah oo dhahaya hebel iyo hebel lacag la siiyaa waa fikir gaaban waa aniga khayr ma garanayo wiligeena telefoon ma kula hadlin wiligeena ma hadda igu horeysa laakiin waxaan ogahay isagu kaliya inuusan waxba qaban karin ay qof walba Soomaaliyeed inay muhiim tahay inuu wax qabto oo garab siiyo oo taageero oo hore loo socdo dad fara badan jiro dawladda inay hore u socdaan rabin oo shisheeye ku xiran marka fikradaha noocaas oo kala 25 sano ku soo gubanay waa inaan ku bedelnaa wanaag iyo horumar iyo burus yar meel marka laga garaaco in la yiraahdo maanta halkaas dhisma ka socda ما شاء الله waxaa jirta arrimo runtii inta badan ayaamahan dambe aan maqalnay oo runtii anigu waan fahmi waayay aniga wadankiisaan kugu sheegay 30 sano ka maqnaa dibaddan waqtigayga badan aan ku qaatay oo aan wax ku bartay waxaan fahmi waayay Salmaano gurigaaga iyo gurigaagana adaa ka mas'uula gurigana ka mas'uula qof kale oo caruurta ka mid ah guriga jooga
haddii uu baxo oo deriska uu u tago ama waddan kale u tago uu maaragtay yidhaahdo reerkii aad la wareegi kartaa waa fahmi kartaa waxaan ka wado waxyaalaha aniga ilaa hadda maskaxdayda keeni waayo waxay tahay in dowlad goboleedyada kolley waa taqaana waxaan ka hadlayo ay waddan kale oo shisheeye ah ay tagaan oo hantidii qaranka oo Soomaali walba ay ka dhaxaysay raas Kaambool raas Caseer ay soo saxiixaan isla markaana raba dowladii Soomaaliya lagu jabiyo dad dibadda ka yimaado oo qabiil ama hungurigu sacabtumaya ma damiirkii ay yaraaday mise dadkaas waa naga saxsan yihiin Salmaano dhibaatadu inaysan ahayn shacabka maamuladaasi ku agnool inaysan ahayn madaxda maamul goboleedyada qaarkood haddii looga yeero Pyongyang haddii looga yeero oo way tagayaan haddii loo waco qaado way tagayaan meel walba way tagayaan laakiin kama fikiraan danta maslaxadda qaranka waxayna markay saxaafadda soo hor istaagaan ama shacabka Soomaaliyeed ee la hadlayo waxay ku sheegayaan muwaadiniin inay yihiin laakiin London hadda maxaa ka dhacay gacmaha la isqabsaday waxaa la yiri dowladda federaalkan ka dambeynayna marka la soo laabtana waxaa ka dhacay in imaaraadka loo kala dhunto degadii berbera la bixiyo tii boosaaso la bixiyo tii xamar wax ka socdo waad la socotaa waxyaalo fara badan in la sameeyo oo la sameeyaa jirto marka dowlad goboleed markeedii hore yaa lahaa Soomaaliya waddan federaal inuu qaato ay tahay mahboon tahay turkiga aan joogno waxa ku nool dhan intaas oo qoomiyadooda ku nool turkiya ku nool kurdisa ku nool carawa ku nool waxyaalo haddana federaal ma aha haddana intaasoo gobol waaye oo naga gobolo badan kan Istanbul kaliya waxay ku soo laabmaysaa Soomaaliya oo dhan marka shacabka kuna marka la barbardhig haddana federaal ma federaalka Soomaaliya horta ma u roona uma aysan roon uma roona Soomaaliya dowlad dhexe u rooneed ujeedka arrintaas loo sameeyay waxay tahay in qaran Soomaaliyeed uu istaago ayaa loo diiday madaxda maamul goboleedyada casuumada loo sameeyaa way baxayaan way tagayaan madaxda federaalka maanta hadday go'aan adag ay la soo baxaana hadhow waxaa kacaya shacabkii ayagoo fikir qaldan oo qabyaalad laga dhaadhicinayo oo madaxda gobolada ay ka dhaadhicinayaan Ethiopia tagay heshiis la galay Imaaraadka tagay heshiis qodobka dastuuriga konta afraad waa la buriyay hadda waa sida la socotay oo dawladdu ayaa ayada ka madax ah wixii arrimo dibadeed ama heshiis caalami ah laakiin dhibaatada jirta waxay tahay in madaxdii la luushayo dhibaato fara badan ay jirto waxaan aniga aaminsanahay ka shakhsi aan fikirkayga Soomaaliya inaysan maamul goboleed aysan u wanaagsanayn madaxda maamul goboleedyadu hadday ay cadaalad ay ka tahay waddaniyada ay sheeganayaan ha ka tanaasulaan maamul goboleedyada waxaan ognahay maamul goboleedka fikirkiisa asalkiisa in uu leeyahay shisheeye inay wataan laakiin maanta haday yiraahdaan federaal ma rabno dowlad dhaxan hogaaminaysa ay daacad ay ka tahay ha laga wada tag laakiin nin walba wuxuu fiirsanayaa maslaxadda caruurtiisa iyo reerkiisa fiirsanayaa ma jirto maamul goboleedyada meelaha ay joogaan shacabka facility-ga looga baahnaa ma haystaan waa maasan tahay waa maasan tahay waa wanaagsan yahay laakiin shacabka ayaa la dhihi karaa amniga ayaga ka taxadiray okay waa maasan tahay waqtigii waxaan soo gaarnay nus saac ugu talagalnay waan ugu dhamaaday insha Allah mar kalena waan samayn doonaa laba su'aalood ugu dambayso muhiim ayaan ku weydiinayaa ugu horeyn Salman waxa lagu yaqaanaa taakulaynta dadka ku dhibaataysan jasiiradda Seychelles India Libya dadkana haystaan taas waa hal su'aal isku soo koob labada isku dar tan kalena oo runtii aan ugu faraxsanahay ninba wuxuu ii soo qoray waa markii ugu horeysay muddo 30 sano ah laba garoon habeen laga wada ciyaaray marka labada garoon waa fahmi kari way ugu horeyn garoonku wuxuu ahaa hodan maaragtay Bradley Stadium iyo waa beri oo runtii aan rabay su'aalo aad u far badan aan ka weydiiyo arrimahaas oo dhalinyaro aad u far badan aan arkay oo Maxamed Antoobo oo reer UK ahaa oo shaqada ay qabteen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo nadaafadii dib u habeyntii wax walba mid waa kaas garoonkan waa garoonkii laga duulo kana bal labada su'aalood waqtigan ugu dhamaado isku soo koobaysid bal iga jawaab arrinta ku saabsan dadka Soomaaliyeed iyo waliba caawintooda iyo waliba inaan u gargaaro waddanka Soomaaliya waxaan isku xilqaamay ka shakhsi ahaan dalku ma haysto dawlad daryeesha shacabkaas oo dhan ma haysto marka maadaama warbaahin aan ahay oo wariye aan ahay oo markaan hadlo meel dheer u gaarayo waxaan isugu xilqaamay in anigoo Muqdisho jooga naftirkeedii in aan dadka Soomaaliyeed aan dadka dhiban oo aad u xanuunsan gargaarka u baahan inaan uga faa'iideeyo shaqo maalmeedkayga oo kaliya ma aha inaan siyaasi soo saaro wadadaasi dariiqadaasi waxaan u qaatay inaan dadka aan caawinaad oo dhan walba inaan u fidiyo markaan halkan imidna kama caajisin shaqadii
dadku markay ayagoo xanuunsan markay yimaadaan ayaga ay soo waca oo yiraahdo isbitaalkaas aan joognaa noo imo waan u tagaa dadan saaxiibaan ku leeyahay halkan saaxiibadii aan u geeyaa oo luqadii loo turjumo dhibaatooyin kala gedisan marka waddanka ka dhaco dadka Soomaali dad wax soo waxaan filayaa signalkii ayaa ka go'ay nasiib xumo waxayna ahayd su-aashii ugu dambeysay ugu muhiimsaneyd salmaan jamaal saciid saaxiib haddaad maqlaysid aad ayaad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga ah ee aad nagu siisay Facebook live insha allah mar kale waan kusoo laaban doonaa waan soo geli doonaa wacyigelinta iyo taageeridda dowladda Soomaaliyeed aad ayay muhiim u tahay dhammaantiina waa mahadsan جمال مركلة اسطنبول ومحسن تهي إن شاء الله مركان هودا كوسو لابننا برنامج نوعا وكلا عن سمين دوننا وان إسلا داون دونا مركا وعي قلينتا دولة الصوماليات آد أي وناكسن تهي ودن كينا وحنور داما مالي قفل بنا واركي وما سنتهين وإن سلامة أنا إيو سلمان جمال وستوس أن ولا هاللي مقالة دا اسطنبول ودن كتركيا انت هود كل ميدونو أنا عبد الناصر إسماعيل وحانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته